waxay la dagaalamayeen dowladda iyo xulafada Afghanistan muddo 20 sano ah. Maanta waxay u muuqdaan kuwo ka xog badan sidii hore. Haatanna Mareykanku wuxuu aaday gurigiisii. Biden wuxuu ciidamadiisa ka saaray Afghanistan, waxayna u ogolaadeen inay maamulaan ama xukumaan waddanka Afghanistan. Haddaba waa kuma dagaalyahanada Taliban sidee bayse ku hanteen awoodda dalka Afghanistan? Maxayse dadku ugu walwalsan yihiin inay la wareegaan waddanka Afghanistan mar kale? Si aad u fahanto Taliban, waxaan u baahannahay inaan dib ugu noqono wixii Afghanistan ka dhacay sanadkii 1980. Jabhadda Afghanistan oo loogu yeero mujaahidiinta ayaa 9 sano la dagaalamayay gumaystihii Soviyetka. Waxay xitaa lacag iyo hub ka heli jireen sirdoonka Mareykanka ee CIA-da. Sanadkii 1989 ururka midowga Soviyeetku way ka baxeen Afghanistan. Sanadihii xigay waxay ahaayeen kuwo aad u qasan. Sanadkii 1992 waxaa dhacay dagaal sokeeye oo aad u daran, kaasoo qabaa'ilka dalkaasi dega ay ku lulamayeen awoodda dalkaasi. 2 sano kadib, maleeshiyaadkii la oran jiray Taliban ayaa bilowday inay soo muuqdaan. Xubno badan oo ka mid ah waxay wax ku barteen madaarista diinta Islaamka ee Afghanistan iyo magaalooyinka xadka Pakistan. Sidoo kale qaar ka mid ah iyaga ayaa u dagaalamayay jihad ahaan, waxayna lahaayeen qorshayaal uga gaar ah oo ku saabsan waddanka Afghanistan. Sanadkii 1996 Taliban ayaa qabsatay caasimadda Kabul, waxayna ku dhawaaqeen Afghanistan dowlad Islaami ah, waxayna bilaabeen inay ku soo rogaan u hoggaansamidda shuruucda Islaamka. Kadibna waxaa dhacay 9/11 ama qaraxii saraha labada mataanood ee waddanka Mareykanka ayaa ku eedeeyay inuu ka dambeeyay hogaamiyihii Al-Qaacida Osama bin Laden oo markaasi ku dhuumaalaysanayay Afghanistan isagoo gacan ka heliyay Taliban waxay sheegeen inay rabaan caddayn inuu ka dambeeyay weerarka Osama bin Laden, oo markii ay diideen inay soo dhiibaan, isla markiina Mareykanka ayaa ku soo duulay dalka Afghanistan. dhowr bilood gudahood ayaa Taliban lagu qasbay inay xukunka ka baxdo. Afghanistanna waxay heshay dowlad cusub oo ku meel gaara. 3 sano kadib waxay heshay dastuur cusub, waxaana Xaamid Karzai loo doortay madaxweynaha. Intay taasi socotay, Taliban ayaa dib isu soo abaabushay, waxayna qorshaysanayeen inay cadowga ku soo duulay dalka ka saaraan, waxayna rabeen inay dib ugu soo noqdaan xukunka dalka. Waxaa xigay waxay ahaayeen sanado colaado ba'an. In ka badan 40,000 oo rayid Afghanistan ah ayaa la dilay. Ugu yaraan 64,000 oo military iyo boolis Afghanistan ah ayaa iyaguna sidoo kale la dilay, iyo in ka badan 3,500 oo askar caalami ahayd ayaa ku dhintay. Mareykanka oo kaliya ayaa ku dhawaad $1 trilyan oo dollar ku bixiyay mashaariicda dagaalka iyo dib u dhiska, inkastoo ay xogaha qaar sheegayaan in wadamada ku soo duulay ay daabulan jireen macdanta dalkaasi oo u dhiganta hantidaas iyo mid ka badan. Intaas kadibna Afghanistan weli si aad ah uma xasiloonayn. Talibanna waxay ahaayeen awood maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaysa. Maanta Taliban waxay haystaan ilaa 85,000 oo dagaalyahano iyo xerooyin tababar oo dalka oo dhan ah. Maalinimadii Talaadada ee 17 bishii Agoosto, Taliban waxay la wareegeen dhammaan maamulka dalkaasi. Madaxweynihii Afghanistan Ashraf Ghani ayaa isaga cararay waddanka Afghanistan. Hogaamiyaha Taliban waa Haybatullah Akhwanzada, wuxuu madaxweyne u yahay golaha sare oo kormeera ilaa 10 guddi oo qaabilsan arrimaha maaliyadda, caafimaadka iyo waxbarashada. Hoos waxaa ku xiriirsan mas'uuliyiinta maxalliga ah oo mas'uul ka ah adeegyada maalinlaha ah. Taliban waxay u samaysnayd dowlad barbartaal la ah dowladda Afghanistan. Xitaa waxa ay maamulayeen maxkamado iyaga u gaara oo dhextaal ah. Xakameyntaas oo dhammi waxay kaloo ka dhigtay kuwo hodan ah, sida laga soo xigtay xubnaha Taliban iyo guddi ka tirsan qaramada midoobay. Waxaa sanadkiiba ay sameeyaan ku dhawaad $1.5 bilyan oo dollar. Sida aan ka soo xiganay warbaahinta Al Jazeera, waxay had iyo jeer lacag aad u badan ka helaan kobcinta opiumka iyo ka ganacsiga daroogada, laakiin waxay heleen xitaa siyaabo badan oo dakhli lagu soo saaro. Sanadkii hore waxay malaayiin ka sameeyeen ka ganacsiga macdanta. Waxay kaloo lahaayeen nidaam canshuur ururin ah oo u gaar ah
waxayna wax ka heli jireen dalalka dibadda, inkastoo ilaha la tuhunsan yahay ay yihiin sida Bakistaan iyo Iiraan ay diideen sheegashada arrinkaasi. Muddo sanado ah beesha caalamka waxay isku dayeysay inay Taliban iyo dowladda Afghanistan wada hadlaan, ama ugu yaraan inay ka wada hadlaan sidii ay u wada hadli lahaayeen oo ay wada hadal u furi lahaayeen. Intii lagu guda jiray xabad joojinta ciidda ee ku koobnayd sanadkii 2018, Taliban iyo askarta Afghanistan ayaa la arkay iyagoo isku dhex milmay gudaha Kaabul, xitaa iyagoo wada tukanaya, laakiin wada hadallada nabadda guud ahaan wax badan ma aysan gaarin. Waa hagaag rajada laga qabo nabadda iyo xasiloonida dalkaasi waxaa laga eegan karaa habmaamulka ay soo bandhigaan ururkaasi. Hataa iyadoo ay socdaan wada hadalladii nabadeed ayaa la dilay ku dhawaad 1800 oo rayid ah 3 bilood ee ugu horreeyay sanadkan. taasi waa ku dhawaad 30% in ka badan sanadkii hore, waxaana sidoo kale jiray mowjado dilal ah oo dadku ku eedeeyeen Taliban. dadka Afghanistan ayaa durba isweydiiyay sida ay noqon karto noloshooda haddii Taliban ay mar kale la wareegto xukunka. haddaba taageero intee la-eg ayaa loo hayaa Taliban? dadku ma jecla iyaga, laakiin reer Afghanistan waxay ka soo horjeedeen faragelinta shisheeye. Taliban iyaga oo og waxa ay rabaan waxayna muujinayeen inaysan sahal uga harin halgalkii ay ku jireen muddada dheer. ilaa iyo hadda istiraatiijiyadda Taliban ayaa u muuqata mid shaqaynaysa. maxay kuula eg tahay guusha Taliban? waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar, muuqaalkana like saar. mahadsanid.